salaamullaahi calaykum kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada xubin aan u macdaray taxanaha koobka adduunka waxaana ka bilaabaynaa qaybta koowaad oo ah markii ugu horeysay ee la qabto koobka dunida wax walba oo ku saabsan ayaan faaqidi doonaa ee soo dhawaada marka hore waxaan ka codsanayaa saaxiib inaad follow isoo dhahdo sidoo kale koobilinka itaabo aragtidaadana ka dhiibo warbixintan koobka adduunka 1930kii wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee FIFA World Cup waxayna sidoo kale ahayd markii ugu horeysay koobka adduunka dhanka ragga la qabto waxaa martigelinayay xulka Uruguay koobka ayaa soconayay 13 ilaa 30 bishii Luulyo 1930 FIFA oo ah xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta ayaa Uruguay u doortay martigelinta iyadoo waddanku xilligaas ku jiray dabaaldeg sanad guuradeed dhammaan ciyaaraha ayaa lagu ciyaaray caasimadda Uruguay ee Montevideo inta badan waxay ka dhaceen garoonka Stadio Centenario oo si aad ah loogu diyaariyay tartanka waxaa tartankan ka qayb galay 13 waddan 7 waddan oo ka mid ah waxay ka socdeen koonfurta Ameerika 4 ayaa ka socdeen dhanka qaaradda Yurub iyadoo sidoo kale 2 waddan ay ka socdeen waqooyiga Ameerika kaliya dhowr xul oo Yurub ah ayaa ogolaadeen inay ka qayb qaataan sababtoo ah xulalka kale waxay u diideen socdaalka dheer awgiis waana ay ka niyad jabeen xulalka ayaa loo qaybiyay 4 group iyadoo xul kasta oo soo baxay ay si toos ah u aadayeen semifinalka labadii ciyaar ee ugu horeysay ee koobka dunida ayaa isku mar dhacay Lucien Laurent oo u dhashay dalka Faransiiska ayaa dhaliyay goolkii ugu horeeyay ee taariikhda koobka adduunka halka goolhayaha Mareykanka ah ee Jimmy Douglas uu isla maalintaas noqday goolhayihii ugu horeeyay koobka adduunka shabaqiisa ilaashada goolan tartanka waxaa ku guuleystay Guillermo Estebal oo Argentina ah kaasi oo ku qaaday 8 gool xulalka Argentina Uruguay Mareykanka iyo Yugoslavia ayaa ku guuleysteen inay ka soo baxaan gurubyadooda iyadoo ay soo gaareen heerka semifinalka waxaa la yaab lahayd in labada xul ee finaalka isugu yimaadeen ay min 6 gool kaga soo badiyeen xulalka Mareykanka iyo Yugoslavia ciyaartii finaalka ahayd xulka martigelinaya iyo Argentina oo iyana ka socotay isla qaaradda Ameerika ayaa iswajaheen waxaana 4-2 ku adkaatay Uruguay ciyaar ay daawanayeen 68346 ruux oo ka dhacday garoonka Stadio Centenario Montevideo waxaa garsooriyeen John Lanchinios oo u dhashay waddanka Belgium waxayna noqdeen waddankii ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka dunida Francisco Varela oo u dhashay dalka Argentina ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee ka qayb gala koobka adduunka waqtigaas waxaana uu dhintay sanadkii 2010kii isagoo jira da'da 100 sano